بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa taariikh 9 April 2015 Xamarweyne Health Center waxaana ku wareejinaynaa insha Allah quudin oo caruurta ilmaha yar lagu talagalay quudin degmada wana mas'uuliyiin socdaan degmada ka socdo insha Allah imaamada maamacada oo nuugu soo madaxweyne إن شاء الله وحوالي تم وحاول تزيد من الكلام وهذه الدجمة الكواد عن كل العالم وحاول برنامج كان مشروع وحوالي لحظة يكون دجمة وجوز بنادق عن الجميع إلى بسم الله الرحمن الرحيم. بعد runtii aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay IRF oo maaragtay quudinta carruurta maamulka degmada Xamarweyne soo gaarsiisay kadibna aan ku wareejinayno MCS ama Central Health Xamarweyne marka waxaan mahad celinaynaa quudintaas carruurta ay soo gaarsiiyeen maamulka degmada Xamarweyne waxaan ku faraxsanahay inaan ku wareejino maama Caasho oo madaxda u ah sirajka Xamarweyne marka maama بسم الله الرحمن الرحيم. horta hay'ado badan waan soo maray laakiin ayaamahan dambe xoogaa gaabisa iska jiray ninkan asagoo ah nin u dhashay degmada Xamarweyne saan u malaynayo horaan u aqliinay caafimaadkana aad iyo aad garab inuu u siiyo jecel bahda caafimaadka alaabtan nutritionka oo ilmaha aad u liita oo aad u liita nafaqadarrada ah kow kuwii ugu bilaabayay ah ayuu maanta noo keenay annaga waa kistiga awal UNICEF laga soo qaaday waa kaxakabeynayna kuwan laakiin ilmahagiisa waxaan jecelnahay inaan mataqaanaa aan sef jirtibna noo keenayday karaamidka UNICEF يعني أيها الشباب مرتيناي هذا واحد جدمدني أيها صوت دراسي الله كان أغلب من الناس اللي يلقوا الجدمدة ولا حلوة في فرعون أي واحد ده وركن نقول الجدمدة Xamarweyne هدي أن كان المف وترى متى أيها الصومر وعملت نقول قوة وسبعية هذا ما هالسنتين كبرنا الثروة كافرنا هنا محو هاي وحيار بدنا دمنا بانتاي محو هاي دنك سا محوي أما دلان أنا شغلنا وهوي دلان لكن دعوة اليوم مرت أو بيجي ليه حوجم كورنا لكن توكسي هاليان جاسي أفكار أخوان تجاسم وحصار الصلاة ما هن كون ومفرية وحي كنا يا وحي مترا ما هن waxaad ogaatiin degmadiina ruuxiina inaad tagtiin internationalka ee qoladan jariska idin ah iyo inaad daawo u keentiin meesha waan ku mahadsantihiin macaasha ibriin aad iyo aad